mashruucan oo ay maalgelinayaan Bangiga Adduunka isla markaana ay ka qayb qaadanayaan 11 shirkadood oo adeega korontada ka bixiya gudaha Soomaaliya ayaa laga fulinayaa degmooyin ka tirsan gobolada dalka. IBS Bank oo wakiil uga ahayd Bangiga Adduunka maalgelinta mashruucan ayaa looga faa'iideyn doonaa ku dhawaad 10,000 oo qoys oo adeeg lacag la'aan ah oo koronto ah heli doona. munaasabada saxiixa mashruucan oo ay goobjoog ka ahayeen wakiilada shirkadaha, madaxda IBS Bank iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay isku duwaha mashruucan Cabdisalaam Cabdullaahi iyo Cabdiwaxiid Ibraahim oo ah agaasime ku-xigeenka wasaaradda tamarta dawladda Soomaaliya. maanta waxaan halkan isugu imaanay tartan dheer oo soconahay August sanadka soo dhaafay ilaa hadda inaan ku soo gabagabayno anagoo ku soo bandhigaynay 12 company oo ku guuleystay inay noqdaan kambaniyada gaarsiin doona korontada 10,000 oo qoys oo Soomaali ah oo gobolada wadanka oo dhan ka soo joodo in halkan isugu imaadaan ayagoo la saxiixanayay maxaa la yiraahdaa deeqdaas bixinteeda dawladda khaasatan wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dawladda federaalka Soomaaliya. waxaan si gooni ah ugu mahadcelinayaa tiimka IBS ee maamulka iyo qorsheynta iska lahaa mashruuca kan oo soo gaarsiiyay halka kan projectiga oo projectiyada ugu horeeyay maarta noociisa ee ka hirgala wadanka. projectigani waa project ownership ee iska leeyihiin Soomaali World Bank wuxuu kaliya uu yahay isaga inuu bixiyo deeqdaasi uu bixiyay oo kaliyana gaagareeyo kaliya, laakiin waxaasi ka shaqeynaya oo dhan waxa weeyaan waa Soomaali, wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha, IBS iyo dhammaan kambaniyada hadda marka kaasi maanta jooga. gudoomiye ku-xigeenka IBS Bank Mudane Cabdirasaaq Cali Warsame iyo wasiiru dowlaha tamarta iyo biyaha Soomaaliya Shukri Afrax ayaa ka mahadceliyay isgarabtaaga Bangiga Adduunka ee dadka Soomaaliyeed. waa xafladii saxiixida grant managementiga solar energy-ga oo ay owner ka ah dawladda Soomaaliya, wasaaradda biyaha iyo kheyraad, wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha, bangiga IBS-na uu ka ahaa grant manager, sidoo kalena donor uu ka ahaa World Bankiga. barnaamijkaas ayuu ahaa maanta aan isugu imaanay, hadda ka hor launchingkiisa aan isugu imaanay August la soo dhaafay. mahadsantihiin World Bankiga oo mar walba u taagan inuu ka caawiyo Soomaaliya sanadihii dambe ay madaxa la soo kacday markii ay baaba'sanaydba sidii ay ficil uga qabsan lahayd. projectigani wadamada dariska uu ka jiraa Kenya ka warhaya uu ka jiraa ma dhib yara hirgelintiisu haddii aad dadaashaan, laakiin waxaan qabaa in lagu guuleysan doono oo noqon doono mid u horseeda ummadda Soomaaliyeed oo baadiyaha joogta nolol aan gurguur lahayn oo fadhisa. markii guri walba oo tuulo ah loogu geeyo korontadii oo uu ku charger garaysan karo telefonkiisa, television ku fiirsan karo, maxaan ku iraahdaa nalkii uu ku shidan karo. haddii uu hirgalo mashruucan ayaa dad badan oo mugdi ay ku jiri jireen ka bixi doono iyadoo aysan lacag ka bixin kana faa'iideysan doono barnaamijkan oo ay soo fududeysay IBS Bank. Maxamed Yaxya Jiin, warbaahinta Nation, Muqdisho.